ganacsada soo dhawow magacaaga saddexan noogu bilow marka ugu horeysa barnaamijka garasho wadaag oo ah barnaamij ka hadla xalinta khilaafaadka nabadda isdhexgalka bulshada isbedelka cimilada ka baxa idaacado kala duwan oo galmudug ku yaala ayaa markii ugu horeysay waxaa si toos ah looga baahin doonaa raadiyo galguduud maanta oo taariikhdu tahay 12 bisha December sanadka 2024 sidee u aragtaa barnaamijkaas inuu soo gaaray markii ugu horeysay Dhuusamareeb si toos ah iyadoo inta badan laga dhageysan jiray hore Dhuusamareeb iyo deegaanada kale aad u masantahay burhaan oo magaciiga waa Faysal Cali Ibrahim Faysal Wadani magaalada Dhuusamareeb caasimadda dowlad goboleedka Galmudug ayaan joogaa barnaamijkan garasho wanaag aadan ugu dhawahay waana maleynaynaa inuu maartay caasimadda dowlad goboleedka Galmudug imaanayo aniga waxaan ka mid ahay dadka dhageystayaasha barnaamijkaasi ku taxan oo idaacadda raadiyo galguduud kala socdo oo maalinta khamiista iyo maalmaha kaleba intaba dhageysto وانا برامج aad iyo aad u harsaray waaye waxaan maartay oo ka shaqeynaya ayna tahay maartay joojinta colaadaha dhibaatooyinka ka dhasha iyo Soomaalida inta badan oo muddo 30 iyo dhowr sano ay maartay dagaalo oo aan maartay aan dhamaad lahayn ay isku haysato in laga wacyi oo isla marxaantaasina loo sheego inay maartay dagaalka uusan wax faa'iido uusan lahayn cid maanta ay ku faa'iideen aysan jirin muddada dheerka oo dagaalkaas socday aadan ugu mahsanahay barnaamijkana aad u soo dhaweynaya adna waxaan ku leeyahay soo dhaw saaxiib sara way warbaahinta kala duwan waxa ka baxa barnaamijyo kala duwan iyo waxyaabo kala duwan maxaa isleedahay barnaamijkan muhiim u yahay bulshada maadaama inta badan aanu ka hadalno waxyaabaha bulshada faa'iidada leh waa masantahay barnaamijkan wuxuu kaga duwan yahay wuxuu diiradda saaraa isla marxaantaasna uu ka hadlaa in ay maartay colaadda la joojiyo waxyaalaha uu bani aadanka inuu ka shaqeeyo loo baahan yahay waxaa kowka in aad maartay dad walaalo ah dhex gashid oo fariin aad gaarsiisid si ay maartay nabadgelyo u helaan maadaama ay maartay wax la dila amba ay waxyaalaha uu qaalisan ay tahay nafta bani aadankana inay go'do ay tahay wax aad Ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu ka sheegay quraanka ku sheegay ahadiidna ka sheegay isla marxaantaasina aan maartay barnaamijkan uu yahay barnaamijyada ugu tayada badan oo warbaahinta ka baxo aniga marka garaasha ahaanteeda waxaan isleeyahay barnaamijkaas waa barnaamij aad u fiican waa halkaana ka sii wada siina kordhiya siina badiya waxaan leeyahay insha Allah waxaan rajaynayaa in barnaamijkaas abaalkiisna aad heli doontaan maadaama safar dheer u soo gasheen oo gaalkacyo ka imaateen hadda Dhuusamareeb aad joogtaan waxaan ku faraxsanahay in barnaamijkaas halkaan aad keentaan maadaama labada gobolka Mudug iyo Galguduud ay yihiin meelaha ugu calaamada badan ee Soomaalida hadda ay ku harsan tahay inay maartay qabyaalad la isku dagaalo dadka reer baadiyana badana arintaasi ay ka dhacda burhaan mid kale aan kugu daray sideedaba dadka maaragtay aqoon-yahanada iyo dadka ganacsatada ah inta badan dagaalka kama dhaxay waxa dagaalka wada waa dhalinyaro aan waxba baran iyo dhalinyaro aan ganacsi iyo waxba xirfad aysan lahayn oo mar walba ay maaragtay ayaga maaragtay dhibaatada oo dhinacooda loo adeegsado ayaan isleeyahay laakiin dhalinyarada waxaan ugu baaqay inay waxbarashada ay ku dagaalaan ganacsiyana ay sameystaan si ay maaragtay colaadda iskaga deeyaan oo isla marxaantaasina aysan soo noqon ayaan rajaynayaa taas ayaan aan dhihi lahaa saaxiib waayahay Faysal ugu dambeyntii maxaa jeclaan lahayd barnaamijkan ugu soo kordhiyay mid iyo labo taladooda waa masada horta barnaamijkan aad u fiican yahay in asaga naftirkiisa la sii ballaariyo oo magaalooyinka iyo degmooyinka iyo tuulooyinka ee Galmudug la gaarsiiyo ayaan jeclaan lahaa maadaama barnaamijkan uu yahay wacyigelintana maartay in dadka baadiyaha jooga iyo dadka tuulooyinka jooga ay dhibaatada badan ay ka dhaxayso in ayaga inta loo geeyo oo la wacyigeliyo barnaamijyo loo qabto seminar loo qabto oo la yiraahdo waxaan dagaalkan iska joojiye taas ayaan jeclaan lahaa barnaamijka aad u fiican yahay hadda wax ka maqan lama arka sheekooyinkiisa iyo maartay iyo qaabkay aad u daadinaysa aad u fiican yahay